Cabdicasiis Bouteflika madaxweynaha dalkaasi Algeria ayaa sheegay in uusan mar shanaad u tartami doonin xilka madaxtinimada dalkaasi kadib markii dalkaasi ay ruxeen dibadbaxyo ballaaran oo dadka reer Algeria ay uga soo horjeedaan in ninkaasi uu isku sharaxo mar shanaad kursiga ugu sarreeya dalkaasi. Cabdicasiis Bouteflika oo 82 sano jir ah ayaa dib u dhigay doorashooyinka dalkaasi isagoona sheegay in aan la qaban doonin doorashooyinka isla markaana lagu bedeli doono shirweyne siyaasadeed iyo isbedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi dhamaadka sanadka 2019. wakaalada wararka u faafisa dalkaasi waxa ay ku warantay in madaxweynuhu uu doonayo in dib loo dhigo doorashooyinka madaxtinimada isla markaana aysan dhici doonin bisha soo socotay ee Abriil 18 sida la qorsheeyay. Dhinaca kale dabaaldegyo waaweyn ayaa ruuxay qaybo ka mid ah dalka Algeria oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi ee Algiers kadib markii shaaca laga qaaday in uusan Cabdicasiis Bouteflika mar shanaad isku soo taagi doonin xilka madaxtinimada dalkaasi. Warar kale oo hordhaca waxa ay sheegayaan in ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa dalkaasi Ahmed Aw Yusuf Yaxya uu shalay iska casilay xilkaasi kaasi oo lagu bedelay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Nuuraddiin Badaawi. Cabdicasiis Bouteflika madaxweynaha dalka Algeria ayaa muddo sanado la xanuunsanayay cudurka loo yaqaan faaluga kaasi oo ku dhaca xubnaha aadanaha. Sanado kadib markii uu dib ugu soo laabtay dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan markii shanaad qabashada xilkaasi waxaana si weyn uga soo horjeestay ku dhawaaqistiisa dadka ku nool dalka Algeria kuwaasi oo u arkay in uu yahay madaxweyne waqti dheer soo maamulayay dalkaasi haddana ay tahay xilligiisii in la dhaafay. Dadka reer Algeria ayaa dibadbaxyo waaweyn waday tan iyo bishii December ee sanadkii hore waxayna uga soo horjeedeen aragtida uu ku doonayo madaxweyne Cabdicasiis Bouteflika inuu xilkaasi mar shanaad isku soo taago.